kusoo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka qodobada wararkeena ugu waaweynna waxa ay kala yihiin waqtiga ayaa lala herdamayaa si loo samata bixiyo dadkii ka badbaaday duufaanka Idai oo kumanaan qof hoy la'aan dhigtay koonfurta qaaradda Afrika. Amnesty International waxay ku eedeysay Mareykanka in dad rayid ah ay ku laayeen Soomaaliya dagaalka qarsoon ay kula jiraan Al-Shabaab. warbixin dheeraad ah iyo waraysi ayaanu idinkaga haynaa duqeymaha ay geystaan diyaaradaha aanu duuliyaha saarnayn ee Mareykanka. warar kale caawana waxaa ka mid ah saameyn culus oo ka dhalatay abaaraha iyo macluusha waqooyiga Kenya ayaa wali halkaasi laga dareemaya. in ka badan 11 qof ayaa la xaqiijiyay inay u dhinteen gaajo iyo macluul. maanta oo ah 20 Maarso waa maalinta caalamiga ah ee farxadda. waxaanu idin geyn doonaa magaalo dalkan Ingiriiska ku taala oo ay dadkeedu ka wada shaqeynayaan sidii loo faafin lahaa farxadda. kala soo BBC News Somali Television-ka raadiyaha online-ka iyo baraha bulshada. halkani waa London. barnaamijkuna waa caawa iyo caalamka. habeen wanaagsan daawadayaal. waaniga maxamed cabdi xaraar idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe dalka Mozambique waxa uu bilaabatay 3 maalmood oo baroordiiq qaran ah oo ay u sameynayaan dad ka badan 200 oo qof oo ku dhintay ama u dhintay duufaanta Idai. hay'adaha gargaarku waxa ay haatan ku fikirayaan qatar ka imaan karta cudurka ka dhalan kara biyaha. aadan maxamed cabdi saalamin ayaa ka waramaya. ismayaal ay biyo burburiyeen waa waxa kaliya ee ka muuqda magaalada Beira taasoo ay si xoogan ay u qaaday duufaanta Idai. qofka kaliya ee biyaha ku dhex socda si uu soo eego wixii ka haray gurigiisa. dhul ballaaran oo ay biyuhu qaadeen ninkan kaliya ayay kooxaha sameytu bixintu soo badbaadiyeen. biyuhu waxa ay qarqiyeen dhul ballarkiisu uu gaarayo 50 kilomitir. qaar badan ayaa fuushan saqafka sare sida sawirada ka muuqata. mahadiya ka gaartay gargaarka ayaa yimid cunto iyo hooy iyo lacag kaashayntaba, laakiin waxa ay gaari doontaa magaalooyinka marka ugu horeysa. bulshada miyiga waqti dheer ayay sugi doonaan inay kaalmo helaan. waxa aynu ka hadlaynaa dhibaato weyn si aan dareenka idiin siino. waxa aynu dhab ahaantii fursad u helnay 10% deegaanka ay duufaanta ku dhufatay, xitaa si aan u ogaano waxa ay baahidooda tahay. goobaha fogfog waxaa laga yaabaa in 600,000 oo qof ay saameyn ku yeelatay. guud ahaan xadka Zimbabwe dawladdu waxa ay qiratay inaanay waxba ka qaban karin baaxadda ay leedahay musiibadani. dad badan ayaa sheekadaasi oo kale ku sheegaya. baahi ayaa halkan ka jirta. guryihii waa ay baaba'een. ma haysana goob aynu joogno. dhammaan cuntada suuqa taala waa ay burburtay. carruurtuna waa ay dhimanayaan. dhibaato ayaana haysato. qof kastaahi wuu og yahay marka la eego burburka daadadka iyo dhoobada in shuban iyo daacuun ay ka dhalan karaan. guud ahaan waxaa la rumaysan yahay dad ka badan 2,600,000 oo qof inay saamaysay guud ahaan 3 gobol. durbaba khubaradu waxa ay sheegeen inay tahay masiibadii ugu xumeyd ee ku dhufata koonfurta Hamisfeer. hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Amnesty International ayaa warbixin cusub ay soo saartay maanta ku sheegtay in weerarada cirka ee Mareykanku ka fuliyaan Soomaaliya ay ku xadgudbeen sharciga bini'aadamka iyaga oo laayay dad rayid ah. hay'addu waxa ay sheegtay in intii uu madaxweynaha noqday Donald Trump ay kordheen ololaha lagu bartilmaameedsanayo kooxaha xagjirka ah sida kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya. Amnesty International waxa ay ugu magac dartay warbixintan dagaalka qarsoon ee Mareykanku uu ka wada Soomaaliya. waxay sheegtay in baaritaan ay ku samaysay 5 weerar ay ku ogaatay in lagu dilay 14 qof oo rayid ah, 7 kalena halkaasi lagu dhaawacay. weerarada ay sheegtay hay'addu ama baaritaanka lagu sameeyay ayaa waxa ay sheegtay inay ka dhaceen koonfurta Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Shabeellada Hoose oo intiisa badan ay gacanta ku hayso kooxda Al-Shabaab.
maraykanku waa uu beeniyey in dad rayida halkaasi lagu dilay ama howlgaladoodu ay salfadeen dad rayida. haddaba si aan wax uga ogaano warbixinta Amnesty International waxaa si toos ah qadka stuudiyaha Nairobi ugu jira Cabdullaahi Xasan oo ah cilmi baare ka tirsan hay'adda Amnesty International. Cabdullaahi ku soo dhawow BBC Somali TV. sidaan ognahay warbixintan ama meelaha weerarada lagu qaaday waa meelaha inta badan shabaab gacanta ku hayso. sidee warbixintan ku hesheen hadaba? mahadsanid. waa sida aad sheegtay warbixinta waxaan ku xusnay in ay weerarada Mareykanka oo Soomaaliya ku qaaday aad u kordheen labadii sano ee la soo dhaafay. waxaan warbixinta ku sheegaynaa in ugu yaraan 100 weerar oo Mareykanka ku qaaday Soomaaliya, 5 kamid ah weerarada ayaga ayaa waxa ku dhintay 14 qof oo shacab ah, waxa kaloo ku dhaawacmay 8 kale oo shacab ah. waxaan ku sameynaa warbixinta ayada ee gobolka, waxaan ka diyaarinay gobolka Shabeellada Hoose oo ay ka taliyaan kooxda Al-Shabaab. waa sida aad sheegtay aad ay u adag tahay in baaritaan lagu sameeyo gobolada ay ka taliyaan kooxda Al-Shabaab, maadaama dadka sidanadoo kale ka shaqeeya xuquuqul insaanka ama baaritaanka sameeyo ay aad iyo aad dib ugu tahay in ay galaan. marka waxaan sameynay dadka qaraabada la ah, dadkii ehelada la ah, dadkii dhintay ama dhaawacmay ayaan waxaan ka soo kaxaynay meeshii ayada ahayd gobolka Shabeellada Hoose. intaan ka soo kaxaynay ayaan waxaan geynay goobo ammaan ah oo markaasi aan kula hadalnay. sidoo kale haddii uu suuragali weedo in dadka aan soo kaxayno oo meelaha aan rabna aan geen weyno, waxaan sameynaynaa qadka telefoonka ayaan kala hadlaynay ayagoo jooga goobo ammaan ah. waa gartay walaal, laakiin sidee u xaqiijiseen dadkan aad la hadlaysaan inay ahaayeen dadka ay dhibaatadu soo gaartay ama qoysaskooda ee waxyeelada soo gaartay? waxaan ku xaqiijinay dadka aan la hadalnay ayaa waxay kala yihiin dad goob joogayaal ah. waa dad laga yaqaano tuulooyinka ay dagaalada ka dhaceen. مثلا dadkii Dar es Salaam wax ku noqday, dadkii qaraabadooda ahaa ee meesha ku sugnaa, مثلا haduu wiil ku dhintay, wiilka hooyadii ama aabihii ama walaalkii, dad aan hubinay in ay qaraabo sax ah la ahaayeen ayaan wareysanay. sidoo kale waxaan wareysanay dadka goob jooga ahaa ama la shaqeysan jiray dadka ayaga oo aad u yaqaanay. waxaan wareysanay dhakhaatiir markaasi dadka ayaga qaarkood kuwii dhaawaca ahaa daaweeyay. marka waa wax aan hubno in dadka ayaga ay shacab ahaayeen meesha lagu dilay ama ku dhaawacay. waa gartay Cabdullaahi, waxa walaac laga muujinayaa in warbixinada noocan oo kale ay marmar ay taageero siinayaan kooxda Al-Shabaab si ay dagaalkooda u sii wataan oo ay yiraahdaan Mareykanku waa ka shacabka dilay waxaan idin sheegayna waa run. arrinta ma ka taxadarteen? aad iyo aad baa uga taxadarina arrimaha ayaga ah. waxaad arkaysaa weerarada meesha Soomaaliya lagu qaaday inay ka badan yihiin 100 ayagoo ka badan. waxaan ma aragtay warbixinta ku koobnay kaliya 5 weerar wixii ka dhacay. waxay ku tusaysaa taxadarka weyn ee aan sameynay si waxa aan sheegayno ay sax u noqdaan, cadaynta aan hayna cadayn xoog leh ay u noqdaan oo cid beenin karta ay jirin. waxaad ku ogaanaysaa cadaynta aan hayna inay sax tahay. Mareykanka iyo Africom way beeniyeen in dad shacab ay dileen, laakiin warbixinadooda kuma aysan soo darin 14 qof ee shacabka ah la dilay iyo 8 shacabka ah la dhaawacay waxay ahaayeen. haddii run sheegayaan oo waxa anaka aan warbixinta anaka sameynay ay khalad leedahay ama ay waxba ka jirin, hanoo sheegaan dadkan ayaga waxay yihiin gabadha 18 jirka ah ee lagu dhaawacay tuulada Ilimey waxay tahay gabadhaas waxay loola beegsaday dagaalka hanoo sheegaan. waa gartay Mareykanku ama dawladda Soomaaliya waxay ku doodayaan inay la dagaalamayaan kooxaha Al-Shabaab. adinku warbixinteena ma ku soo darteen talooyin sidee xeega lagu xigtaa ilkana ku nabad galaan oo shacabkana u badbaadaan loolana dagaalama kooxdan argixisada ee Al-Shabaab? kooxda Al-Shabaab dagaal ay kula jirtaa dawladda Soomaaliya. Mareykanka markii aan weydiinay dagaal kula jirtaan Soomaaliya way diideen in nooga jawaabaan, way ka jawaabayaan su'aasha ayada. waxaan la soconaa oo xaqiiqo ah in kooxda Al-Shabaab weeraro ay ku dhinteen dad shacab ah ay ka geysteen gudaha Soomaaliya iyo banaanka Soomaaliya intaba. warbixintanada waxa ku cad tusaalooyin waxyaabaha dambiyada ay sameeyeen Al-Shabaab. marka warbixintan warbixin Mareykanka kaliya loogu dan leeyahay ama dawladda Soomaaliya kaliya loogu dan leeyahay ma ahan. waa warbixin ku saleysan run iyo in Mareykanka uu sharciga caalamiga ah jabiyay oo dad shacab ah u dilay. halkaan ku jeejin Cabdullaahi Xasan, aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. markaan haddii aan ogno qodobo kale oo ku jira wararka caawa. Ra'iisul Wasaaraha Australia Scott Morrison ayaa ka gadooday weerar qaawana ku tilmaamay hadal uu soo saaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan kadib weeraradii Christchurch. munaasabad ballaaran oo lagu xuseeyay dagaalkii koobaad ee adduunka iyo herdankii Gallipoli
oo ay ku dhinteen kumanaan qof oo isugu jira reer Australia iyo New Zealand. Erdogan ayaa sheegay in qof kasta oo yimaada Turkiga isagoo ay ku jirta dareen muslim nacayba la celin doono isaga oo naxash saaran sida uu yaashii sida uu hadalka u dhigay. Taiwan ayaa si rasmi ah Mareykanka u gudbisay dalab ay ku doonayso inay ku iibsato diyaaradaha dagaalka ee F-16 sida uu xaqiijiyay madaxweynaha jasiiradda Tsai Ing-wen. mid ka mid ah wariyaasha maxalliga ayaa sheegay in jasiiraddu dalbatay 66 diyaaradood oo qiimahoodu uu gaarayo ilaa 13 bilyan oo dollar. haddii la aqbalo dalabka waxa ay noqon doontaa markii ugu horeysay oo hub qiimaha gaarayo Mareykanka ka iibiyo Taiwan. dalabkan ayaa imaanaya iyadoo xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Shiinaha iyo sidoo kale Taiwan iyo Beijing ay kor u sii kacayso. midowga Yurub ayaa shirkadda Google duldhigay 1.7 bilyan oo dollar oo ganaaxa kadib markii lagu eedeeyay in ay soo hor istaagtay shirkado kale oo suuq wadaag ay yihiin. waa jaangooyadii saddexaad ee midowga Yurub duldhigaan shirkadaha waaweyn ee internetka. Google ayaa lagu eedeeyay in ay ku xadgudubtay suuqa iyadoo ka faa'iideysanaysa awoodeeda isla markaana xanibaysa in shirkadaha yaryar ay wax ku xayeysiistaan internetka. shirkadda Google ayaa racfaan ka qaadanaysa ganaaxan. xusna wararka ugu dambeeyay ee BBC Somali waxaad ka heli kartaa bbc.com/somali. wali waxaa noo soo socda oo aad qaybaha dambe ku daawan doontaan saameyn culus oo ka dhalatay abaaraha iyo macluusha waqooyiga Kenya iyadoo halkaasi ay laga dareemayo in ka badan 11 qof ayaa la xaqiijiyay inay u dhinteen gaajo iyo macluul gobolada waqooyi ee dalkaasi Kenya. wararkaasi warar kale ayaad ku daawan doontaan qaybta dambe. habeen wanaagsan mar labaad wali waxaad daawanaysaan caawiya caalamka waniga maxamed cabdi xaraari balaanin xasuusiyo qodobada caawa wararkeena ugu waaweyn. waqtiga ayaa la hardamayaa si loo samata bixiyo dadkii ku badbaaday ama ka badbaaday duufaankii Idai oo kumanaan qof hoy la'aan dhigtay koonfurta qaaradda Afrika. Amnesty International ayaa ku eedeysay Mareykanka in dad rayadaha ay ku laayeen Soomaaliya dagaalka qarsoon ay kula jiraan Al-Shabaab. tiradii ugu horeysay dadkii ku dhintay weerarkii lagu qaaday 2 masjid oo ku yaala dalka New Zealand ayaa la aasay. aabba iyo wiil oo dhalay oo ka soo jeeda dalka Suuriya ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay weerarkan oo jimcihii hore ka dhacay masaajid ku yaala magaalada Christchurch. waxaa la tuhunsan yahay in ninka weerarka qaaday uu ka mid yahay koox cadaan ah oo dadka kale iska sarreysiisa. dad boqolaal ah ayaa isugu yimid si ay tacsi tiiraanyo ugu muujiyaan dhimashada Hamza oo 16 jir ahaa iyo aabihii Khalid oo lagu aasay meel u dhow halkii lagu dilay. Zayd oo ahaa 13 jir oo uu dhalay Khalid ayaa ka soo qayb galay tacsida isagoo saaran kuraasta dadka naafada ay isticmaalaan. aas kale ayaa la qaban doonaa maalmaha soo socdo iyadoo ay qoysaskii dadku ay ka dhinteen wali ay sugayaan in si rasmi ah loo aqoonsado dadkooda. Brenton Tarrant oo ah 28 jir kana soo jeeda dalka Australia ayaa lagu soo oogay dacwad dila. Ra'iisul Wasaaraha cusub ee New Zealand Jacinda Ardern ayaa ballan ku martay inaanay marnaba ku dhawaaqi doonin magaciisa. waraysi gaar ah oo ay siisay BBC-da ayay go'aankeeda ku sharaxday. Let's distinguish, I think, between learning the lessons
aan kala saarna sida ay ila tahay waxa u dhexeeya in aan wax ka baranno wixii halkan ka dhacay iyo in aan fulino rabitaanka dambiilaha. waxa xaqiiqo ah in ay tahay in aan cashar ka baranno labada dhinac. waxa horseeday fikradda qaldan ee shaqsigan iyo bi'ada u ogolaatay in arrintan ay sii faafto. taa ayaana ah waxa aan kala saaray. rabitaankiisa ah in uu magac ku yeesho ficilkan xun waana waxa aan kala qaaday. wahagaag weli waxaa ka jira waqooyiga Kenya abaara ba'an oo saameeyay qaybo badan oo ka mid ah waqooyiga dalkaasi. dad gaaraya ilaa 11 qof ayaa la xaqiijiyay inay macluul u dhinteen. dhowr dugsi ayaa la xiray iyada oo ardadii waalidkood la hayaameen si ay u raadsadaan cunto xoolahana ay daaq ugu helaan. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa inoo haya. xanuun warwar iyo gaajo ayaad ugu imanaysaa tuulooyinkan ku yaala gobolka Turkana ee waqooyiga Kenya. dad ka badan 11 qof ayaa ilaa iminka dhintay, qaar kale oo badanina qarka ayay u saaran yihiin haddii aanay xaaladdu isbedelin. carruurta da'yarta ah ee deegaanadan abaarta xaalufisay ee Kenya, dugsiyada hoose ee carruurtu qadada bilaashka ah ay ka cuni jirtay waxay isu bedeleen xarumo nolosha lagu badbaadiyo, gaar ahaanna deegaanada ay cunto yaradi ku jirto. laakiin iminka xaaladdu waa ka duwan tahay sidii hore. kwa sababu ya ile ukosefu wa chakula. cuntayarida jirta awgeed arday badan ayaa u laabtay waalidkood si ay cunto u raadsadaan. ma muuqato baahida ay u yimaadeen dugsiga haddii aanay cunto oolin. waxay door bidayaan inay waalidiintooda cunto la raadsadaan. sasa xaaladan adag ee abaartani ma ay gafin dadka waaweyn iyo hooyooyinka uurka leh ee deegaankan. qaar badan ayay ku khasabtay inay meelo dheer u lugeeyaan si ay u soo gurtaan midhaha duurka ka baxa si ay ugu badbaadaan. 7 maalmood iminka wax maanan cunin. waxa keliya ee aan cunayay waa mirahan duurka ka baxa. ilmahan aan uurka ku sido ma helayo wax uu cuno markaan umulo. waxba halkani waa meesha aan seexdo anigoo aan waxba cunin. bal eeg calooshayda way gudan tahay baahi darteeda. mirahan un baan cunaa si aan ugu badbaado. dawladdu xaaladan dhan waxba kama ay soo qaadin, iyagoo ku adkaysanaya inay qaadeen tallaabooyin ay wax kaga qabanayaan deegaanada ay abaartu ku dhufatay. dowladda Kenya waxay ansixisay 2 bilyan oo shilin oo loo isticmaalo toddobaadkan si loo hubiyo in biyo la helo. si kastaba ha ahaatee dhowr toddobaad kadib tuulooyin badan oo ku yaala gobolkan Turkana weli wax gargaar ah ma ay helin. dad badanina waxa ay seexdaan iyagoo ay calooshoodu u maran tahay. wagaag waxaan rajaynayaa dadkaasi in si degdeg ah loo samata bixiyo. bal imankan haddii aanu eegno wararka ciyaaraha ee caawa. Germany ayaa isu diyaarinaysa kulamada isreebka Euro 2020. waxay caawa ciyaar saaxiibtinimo la ciyaarayaan xulka Serbia. khabaraha kooxda Joachim Low ayaa sheegay in weeraryahanka Manchester City Leroy Sane uu diyaar u yahay inuu ciyaaraha safto kadib markii 23 jirkan laga reebay xulkiisa koobka adduunka xagaagii la soo dhaafay. waxay ololaha tartanka Euro 2020 ciyaarta ugu horeysa wajahayaan xulka Netherlands Axadda. taageerayaasha ka qaybgalaya ciyaaraha Olombikada 2020 ee Tokyo ka dhacaya ayaa la sheegayaa inay la kulmi doonaan shaqaale robot ah oo loo diyaariyay in ay hagaan. qolyaha qabanqaabada ayaa soo bandhigay robotyo dadka taageera oo loogu talagalay inay ka caawiyaan dadka isticmaala kuraasta naafada ee imaanaya garoonka cusub ee National Stadium. waxay sheegeen in ilaa 16 robot ee howlahaasi diyaar u yihiin, iyagoo gacan ka heli doona 5 robot oo kale oo iyagu loogu talagalay inay wax xamaalaan. xidiga baseballka Mareykanka Mike Trout ayaa lagu soo waramayaa inuu qarka u saaran yahay inuu saxiixo heshiiskii ugu weynaa ee taariikhda isboortiga. qandaraaskan oo 12 sano ah ayaa ah heshiis ay Los Angeles ugu dheeraynayso. Trout heshiiskiisii hore waxaa lagu qiimeeyay $430 milyan taas oo ah ku dhawaad $36 milyan sanadkiiba inuu qaadan doono 27 jirkan ilaa 2031. waqtiga qaboobaha xeebaha Estonia badda ayaa fariisata oo baraf adag isu bedesha, iyadoo barafkaasina uu noqdo mid mug leh oo adag oo la dul mari karayo, iyadoo ay dadkuna gawaarida la dul maraan.
laakiin jilaalkii ugu dambeeyay hawada oo diiranayd awgeed jidadku waa ay xidhnaayeen. cabdiraxmaan bidhaan xaaji daahir ayaa inoo haya. dhisidda waddooyinka barafka ah ee Estonia ayaa Rogal Oglas waxa uu jeexayaa jidkaasi isagoo maraya badda Baltic ee iyadu barafowday. Waxa uu qiyaasayaa barafka waxaana uu yahay 30 sentimitir kaasi oo ah mid lagu socon karayo. markaad eegto barafkan ayaa wuxuu yimid gabadhida xamuulku ay ku dul socon karaan iyo weliba kuwa rakaabka qaada. darawaliinta ayaa dhex mushaaxaya halkan iyaga oo eeganaya calaamadaha cas ee hareeraha ka taagan. isu socodka ayaan ahayn isagu mid saxmad leh, laakiinse boqolaal qof ayaa iyagu jidkan mara si ay uga soo tallaabaan meesha la yidhaahdo Noratosi iyagoo ku sii jeeda Habulusuya maalin kasta. haddii ay maalintu wanaagsanaan lahayd maanta, haddii waddadu ay furnaan lahayd 500 ilaa 600 oo gaadhi ayaa isweydaaran lahaa. dad badan oo reer Estonia ayaa u badheedhay habkan socdaalka ah ee khatartiisa leh, waayo waxay u dhowraysaa wakhtigii iyo shidaalkiiba. Orevia Oglas ayaa waxa uu ahaa nin waddooyinkan ka shaqaynayay isla markaasina darawaliinta caawinayay in ka badan 40 sannadood kadib markii uu shaqadan ku wareejiyay wiilkiisa. waxaana uu sheegay in ay fiican tahay in darawaliintu ay mar walba raacaan sharciga ah inay aayar socdaan. weliba wuxuu yidhi mararka qaarkood waa inaad 25 kilomitir saacadiiba socoto amaba 40 kilomitir markaad dheeraynaysid. waxa uu yidhi si aan buu yidhi aanu barafku halkaasi u milmin oo aanu u jajabin. waxaa horay u jiray sharciyo cusub oo barafka ah. horay waxa ay u ahayd in xitaa albaabku u yara furnaado. iminka ma jirto taasi. sharciga kale ee waddooyinkan barafka markaad dul soconaysaa waxa weeye inaanad xidhan suunka badbaadada ee kursiga ku yaalla. laakiin dabeecadda ayaa iyadu ay tahay tadejisa sida ay wax noqonayaan. sannadkan bishii January iyo February waxa ahayn 2 bilood oo diiran, taasi oo keentay in jidkan inta badan la xidho iyadoo halkaasi barafku ay ka muuqatay dildilaac. wahagaag maanta waa 20ka bisha Maarso, waa maalinta farxadda adduunka. waxaana dadka adduunka ku nool lagu dhiirigeliyaa inay sameeyaan wax farxad geliya ayna farxad ka shaqeeyaan. sanadkii 6aad waxaa warbixinta farxadda adduunka lagu eegayaa muhiimadda farxaddu ay u leedahay caafimaadka qofka. BBC-da ayaa tagtay magaalada Northampton ee dalkan UK. Cusmaan Cabdi Xasan ayaa ka warramaya. dadka Britain waxay qabaan farxad darro ka timid ka bixista midowga Yurub sida laga soo xigtay khubarada caafimaadka iyo aqoon-yahano. waxaa jira digniino la xiriira in hubaal la'aanta dhaqaale iyo deganaansho la'aanta siyaasadeed ay dhaawacayaan caafimaadka maskaxda ee dadweynaha, balse madaxda magaalada Northampton ayaa ka wada shaqaynaya inay faafiyaan farxadda. xarun caafimaad oo deegaanka ku taal waxaa Dr. David Smart loo arkaa inuu farxadda baahiyo. xanuunada walwalka, walbahaarka iyo kuwo kale ayuu u diraa dadka arrimaha bulshada halkii uu daawo uga qori lahaa. dadka waxaa loo diraa hab farxadeed oo ku salaysan taageerada bulshada. Northampton waa meel weyn. markii aanu isku nimid waxaanu garannay inaan isbeddel samayn karno. bukaanada waxaa loo soo diraa halkan maqaayadan shaaha iyo qaxwaha laga cabo. xarun farxadeed ayaa laga furay Northampton. waxaan kula kulmay dad badan oo fiican. waxaan bilaabaynaa timo jare farxadeed. halkan timaha ayaa lagu hagaajiyaa. markay timo jaraha ka baxayaan si wanaagsan ayay u egyihiin. gabadhanna waxaa laga daaweeyey kansar. waan ka farxad badanahay sidii aan ahaa baarista ka hor, maxaa yeelay waxaan ilaalinayaa jirkayga. waxaa jira habab lagu abuuri karo meelo farxadeed iyo dad faraxsan oo xooggan. magaaladan waxay ka shaqaynayaan sida loo caawin karo dadka inay dhinaca fiican wax ka arkaan. wagaag daawadayaal, farxad ku noolaada meel walba oo aad naga daawanaysaan. mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali Facebook. fadlan raadi BBC News Somali halkaasi oo aad ka heli doonto muuqaallo falanqeyn dheeraad ah iyo wararka ugu waaweyn. si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamkana, nagala soco BBC Somali Twitter iyo Instagram. inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka caawa iyo caalamka. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. inta aanu mar kale dib u kulmi doonaa aniga iyo asxaabta Londonba waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.